السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا سؤال تكنولوجي مقال كان كوي كوري واحد كنت سي قاب كلا ولوس دو فيديو كسي وكتير براه برشادة عدينا قط يوتيوب فيسبوك إيو استاتسيدا ودان لكن مقال كاني كواس أيو لميتي هاي كان لكن waxay isticmaalaysaa hal application ayaad isticmaalaysaa ayaad waxa kala soo tagaysaa fiidiyoada ku jira Facebooka statuska WhatsAppka iyo inaad muuqaal hore ula soo tagtay aad u bedeshid dhageysi hadaba applicationkaas muxuu yahay applicationkan waa application qof kasta telefonkiisa ku jira oo kulligeen aan wada haysano telefoonadana ku wada jira hadaba application waxa loo yaqaanaa Xender waa uu ka ballaaran yahay in faylo la isku diro iyadoo la isticmaalayo wireless haddeer waxaa loo isticmaalaa in lala soo dego statusyada WhatsAppka iyo fiidiyoyada Facebooka si dib la'aan ah very easy ah haddaba maanta waxaan ku tusayaa sida aad u isticmaalaya Xender aad ula soo degi lahayd status kasta oo ku jira WhatsAppka iyo fiidiyo kasta oo ku jira Facebooka let's start okay soo dhawaada mar labaad Xtenderka ayaa tagaya okay Xtenderka ayaan ku dhufanaya applicationka Xtenderka waa soo degsanaysaa waa hadaad haysan waa soo degsanaysaa okay Xtenderka sida caadiga ah halkan ayuu ku saaraya khaanadan okay waxa ka wada sida caadiga ah khaanadan ayuu ku saaraya oo ah inaad applicationada ugu jira iyo photoska iyo musica iyo videos ugu jira ay asxaabta aad la wadaagtid adoo isticmaalaya wifi okay Xtenderka marka labada telefoon ayaa la isku xiriirinayaa wifi through wifi dabata xogta iyo data marka aad diraysid it sends from one phone to another phone through Wi-Fi. Laakiin application-kan waxaa loo isticmaalaa in intaa ka badan oo ah in aan wax la soo tago social media aan wax kala soo tago. Okay. Haddaba social media waa kuwa halka mid taxan yihiin meesha waxaad tagaysaa hoose ay ku qoran tahay social ayaa tagaysaa. Meesha hoose ay ku qoran tahay social ayaa tagaysaa. Dabeed halkan ku taxamayaan status waxa weeyaan waa WhatsApp-ka soo baxaya. Dabeed hadda WhatsApp markaa ku dhufatid connect ayaa oranaysaa. markaas wuxuu ku xiranayaa WhatsApp-ka dabeed all statuska halkan ay soo galayaan WhatsApp statuska halkan ay soo galayaan kaad u baahan tahay ayaad la soo tagaysaa okay tusaale ahaan hadda videogan ayaa u baahan la soo tago kalgacaylku caaweeye dabeed download ayaa ku dhufanaysaa download okay sidaas ayaad ula soo tagaysaa very easy weeyaan waa adoo aan ka bixin okay Facebook markaa ku dhufatid Facebook markaa timaatid dabeed wuxuu ku tusayaa Facebook iyo halkaas waxa ku qoran paste Facebook link here okay meeshaas paste Facebook link here okay labada ayaa sameyn kartaa inaad Facebook hore application hore aad gashid dabeetana halkaas videoga aad u baahan tahay inaad link soo copy gareysid aad halka aad link ku paste gareysid iyo inaad open Facebook aad ku dhufatid halkan dabeetana aad videoga aad raadinaysid marka aad u baahan tahay aad raadisid videoga marka heshid dabeetana post ayaa oranaysaa saddexaas link oo kor saaran ayaa ku dhufanaysaa dabeetana waxa ku dhufanaysaa copy the link ayaad oranaysaa marka copy the link dooratid waad ka laabanaysaa application-ka ayaa tagaysaa meeshii ku qortaa copy link ayaa ku dhufanaysaa hoos ayaa wax yar jug siinaysaa ma u riixaysaa marka riixdid waa kacaysaa dabeetana paste the link marka link ku paste gareysid maxaa oranaysaa download okay sidaas ayaad Facebook-kana kula soo tegi kartaa video kasta Instagram-ka waa la mid sidoo kale okay find the video Instagram-ka marka link lama copy gareynayo laakiin videoga ayuu ku dul saaraya calaamadii download-keed sidaas ayaad video kasta oo Instagram ku jira aad ugula soo tegi kartaa waa haddii aad login aad Instagram-kaaga aad gashid TikTok sidoo kale waa videogiisa okay halkaas ku paste gareysaa linkiga Twitter sidoo kale okay videogan muxuu uga duwan yahay videodii hore aad kula wadaagay wuxuu uga duwan yahay videogan video hore application kala duwan ayaa isticmaalaysa laakiin videogan hal application Xtenderka ayaa isticmaalaysa adoo la soo degaya statuska WhatsAppka Facebooka Instagramka TikToka iyo Twitterka video ku jira muuqaalada ku jira okay marka videogan Xtenderka inta badan waxa uu isticmaalnaa inaad faylasha iyo photoska aan ugu dirno saaxiibada laakiin hadda waxaan isticmaali karnaa inaan la soo degno macluumaad ku jira social media okay inta kaliya maahan tusaale ahaan haddaan u baahanahay inaan video mobilkayga ku jira aan u bedelo dhageysi waxaan tagayaa meesha ku qoran tahay 2mp3 okay cornerka shay ayaan tagayaa 2mp3 dabeetana waxaan oranayaa select the video markaan select the video aan iraado wuxuu igeenayaa videoyadeedii okay mobilka ayuu gelayaa memory-ga ayuu access gareynayaa dabeetana files ayuu tagayaa wuxuu soo dooranayaa intii videoiska ayuu soo dooranayaa kaliya ayuu soo dooranayaa dabeetana videoga aad u baahan tahay ayaa dooranaysaa tusaale ahaan gabadhan ayaan dooranayna okay fanaanadan aan iska dhahnaa gabadhan okay saas ku bedelayaa videogan okay dhageys ayuu bedelayaa videoga converting
from video to dhegeystaas uu bedelaya videoga immediately waa sugaysaa marka waqti ayuu qaadanaya videoga intuu bedelayo dabeed waa sugaysaa okay marka it's very important it's very important haddaba waxaan filayaa inaad ka hesheen muuqaalkan inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan kaga tegayaa Ramadaan Kariim salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ha ilaawina inaad subscribe dhahdaan ha ilaawina inaad share dhahdaan maxaa yeelay channelkan idinka